ka ganacsiga dhoofinta bee'ada ama fooxa ayaa si xawliya uga socda guud ahaan dalalka khaliijka iyada oo lagu tilmaamo nooca loogu jecel yahay inuu yahay bee'ada ama fooxa laga keena deegaanada buuraleyda golis ee gobolka Sanaag. haddaba dhowaan mar warbaahinta qaranka Soomaaliland aanu booqanay suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Salaala ee dalka Cumaan ayaan ku soo aragnay dhaqdhaqaaq xooggan oo ku saabsan kala iibsiga bee'ada ama fooxa oo si xawliya u socda. waa tahay daawadayaal wali waxa aan ku guda jiraa warbixintan nooga soo diyaaray magaalada Salaala ee dalka Cumaan. haddaba warbixintan ayaa waxa aan jecelahay bal inaan ku eegno dhinaca uduga saad ka warqabtaan dhinaca beeyada runtii Soomaalidu aad bay caan ugu tahay in ay wax soo saarkeeda ka qayb qaadato. dukaankan imka aan joogno ee lagu iibiyo uduga waxaana jecelahay bal in aan inamada ka shaqeeyo sidoo kale dadka dhalinyarada ah aan bal waraysiyo koos aan ka qaado. Cabdiraxmaan sidii aad ogeyd barnaamijyo ayaan ka sameeyay dhinaca maxjaradii maanta waxaanu joognaa dhinaca uduga bal waxaad iiga warantaa qaab noocee bay uga shaqaysataa Soomaalidu dhinacan beeyada. Soomaalidu waxay uga shaqaysataa shaqo caadi oo legal ah oo ay keenaan sheeg beeyadii waa qarkaas Soomaalidu ku jirta beeyadaas soo gurtaa magaalada keentaa waa laga iibsadaa intaas oo nooc ay beeyadu kala baxdaa markaas ka bacdi baa la sii kala shaandheeya la sii kala duwa ayu nooc udugii bay leedahay catarkii bay leedahay ayu noocaad bay leedahay beeyadii oo magaalada la dhex keenaa ka bacdi dad beemushtar oo ka shaqeeyo oo ayagu hunuud u badan oo Hindi iyo Pakistani iyo ba kala sii wareega Soomaalida kuwaas markaa ii sheeg ayakii dhowr nooc si kala saara kuway soo filter gareeyaan saliid ka dhigaan kuway waxay ka soo dhigaan mataqaana cataro kuway waxay ka dhigaan ii sheeg waxay ka dhigaan mataqaana unsiyo guryaha lagu unsado ayu nooc ka dhiga kuwa dareerayaal laga dhigaa oo mataqaana kareema la ismarsha laga dhigaa. Xuseen oo kamid ah isaguna ganacsatada degan wadankan Cumaan ayaan ku soo dhaweynay telefishinka qaranka Soomaaliland. walaal aad baan ku salaamay dal marto ku soo dhameynaa Cumaan baan ku soo dhaweynaa shaqalkan baan ku leenahay qolada xoolaha iyo xasan kamid ahay laakiin qaybtana waa la keenay beeyada waxaan arkaynaa oo dhan imka dukaanka yaalo waxa weey beeyada laga sameeyaa Soomaalida ka ganacsata waraay ka soo gurtaan meesha keenaan waa laga iibsadaa marka business badan baa ku jira meesha opportunity badan bay leedahay. markaad eegto inaga beeyada xageena way ka baxdaa marka aqoontii xagga ay la lahayn baa halkan keenay mise aqoon baa halkan laga baran karaa beeyada sida loo waa laga baran karaa halkan bacriminteedii iyo aqoon badan bay ka barteen tii wadankeena waa la keenaa marmar baa la keenaa laakiin wadankan isaga beeyo badan bale marka saawiyo waxaad kaloo iga warantaa markaad guud ahaan eegto dhinaca xoolaha iyo dhinaca beeyada keebay dadkeenu u badan yihiin. xoolaha badan wala xoolaha boqolkiiba 80 waa xoolaha xoolaha nool ee shalay xoolaha nool soo artay sheeyto la maxjarada tagtay looda ariga iyo geela inta iyo xoolaha badan boqolkiiba 80 runtii waa laba arrimood oo muhiim ah beeyada iyo xoolaha maxaad markaa fariinaad u diraysaa dadkeeni maadaama ay qanimadaas Ilaahayna siiyay. waxaan leeyahay laga faa'iideysto insha Allah ta'ala xoolaheeni waad arkaysaa nimcada ugu weyn oo aan haysano wax weey xoolaha ku noolay xoolahaas ku nool xoolihii la dayactiro la ilaashado beeyaduna waa labartuugeeduna soo gelsa waa aragtay waxa arimka meeshii yaalo dhan beeyada laga sameeyaa. waa tahay waxaan jecelahay bal iminkana in aan mulkiilayaasha ama dadka shaqaalaha ah aan ka yara waraysto anoo ka cudur daaranayna xagga dhaqanka awgeed inaan tawajigeeda aan idin arkayn laakiin aan jecelahay inay noo sharaxdo. walaalo ku soo dhaw telefishinka qaranka waxaan ku weydiinayaa maxaad halkan ku iibisaa. waxaan ku iibsanaa catarka iyo sida qoroonka noocyinka kala duwan sida coodka iyo matxuunka laakiin dadka qaar waxay jeclaan coodka aad u udgoon badan yahay. maxay kala yihiin qalabka meesha yaala. catar boqor iyo maxaa la jirsan maqmariya looshan iyo waxyaabo dabiici ah sida hada looshankaas saabuuntaas iyo waxaas oo kale dhan waa dabiiciyaan waxaa jirta lubaanta laga sameeyaa iyo wax caadi oo catarooyin ku jira. ma jirto warbixin toos oo sheegaysa xajmiga beeyada ama fooxa laga soo dhoofiyo deegaanada Soomaalida ee la keena dalalka khaliijka balse waxaa jira ganacsato teelteel ah oo iyagu ka ganacsada dhoofinta xabagta beeyada ama fooxa ee loo iibgeeyo caalamka.
daraasado kala duwan oo lagu sameeyey xabagta bee-aadama fooxa ayaa lagu sheegay in haatan loo isticmaalo siyaabo kala duwan hadday tahay dhinaca daaweynta sidoo kale qurxinta jirka bini-aadmiga. waxaa kaloo laga sameeyaa xabagta bee-aadama fooxa cadarada ugu qaalisan caalamka taasoo saameyn ku yeelatay baahida xooga badan ee loo qabo xabagta bee-ada. dalmar warbaahinta qaranka dalka Cumaan.